gorgor iyo danab ayaa loo daadgureynayaa qaybo ka mid ah gobolka Boqol waxayse timid go'aankan ka gadaal kulan xalay ka qabsoomay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maxaa isa ka jira in la hirgelinayo dalab xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee ahaa in ciidamo la geeyo gobolkaasi bandhigii shalay sida weyn dadka uga yaabiyay isla markaana muujiyay sida ay Itoobiya ugu milan tahay siyaasadda Soomaaliya ayaase arrintan ay soo dadajisay muuqaalkan ayaynu ku soo koobi doonaa dhaqdhaqaaqyo ka soconaya magaalada Muqdisho oo lagu doonayo in falcelinno la yaab leh looga sameeyo tallaabadii shalay guracaneed ee maamulka gobolka Boqol iyo kan degmada Xudur ay ku soo qasbeen shacabka waxaan ahay Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biir page-kayga oo ka mid noqo saaxiibada igu xiran si aad halkan uga heshaan warbixino muuqaalo aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee hela xogaha wararkeena warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu ka qabsoomay kulan gaar ah oo u dhaxeeyay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo xildhibaano ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Boqol dabcan wasiirka kudhiisa ayaa ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed kulankan waxaa looga arrinsanayay tallaabadii ay shalay maamulka gobolka Boqol ay ku soo qasbeen dadka shacabka ah ee degmada Xudur ee ay ku soo bandhigeen wax aysan raali ka ahayn ee lagu qasbay oo ay ku iibsanayeen qarannimadooda waxaase jirtay in tallaabadaasi ay timid ka gadaal markii dawladda Itoobiya kol hore mas'uuliyiintoodu ay shaaciyeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay kaliya ka arrimiso gobolka Banaadir saacado kadibse waxaa soo muuqday oo kaamirooyinka ka soo muuqday dad wajiyada qarsanaya muujinaya taageerada Itoobiya ay u hayaan una muuqatay kuwa la soo qasbay kulanka xalay ka qabsoomay Muqdisho waxaa looga arrinsaday sidii loo hirgelin lahaa dalab ka soo yeeray shalay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee sidii loo hirgelin lahaa dalab xalay ka soo yeeray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal ee ku qotomay in ciidamada gorgor iyo danab loo daadgureeyo degmada Xudur ee gobolka Boqol si degmadaas go'doonka ay sanadaha badan ee shabaabka ku hayaan looga qaado si la mid ah gacanta Itoobiya gabi ahaanba looga saaro waxaase dadka shacabka ah halkaas dhibaatada adag ku wajahaya ee maamulka gobolka Boqol kan degmada Xudur iyo saraakiisha Itoobiya ay ku hayaan laga dalbaday in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka dulqaado qorsho waxa uu yahay in Itoobiya aysan qayb ka noqon howlgalka cusub ee ATMIS bedeli doona waxaase Itoobiya dadaal badan saraakiishooda ay ku bixinayaan sidii aysan uga bixi lahayn deegaanada ay gudaha Soomaaliya kaga sugan yihiin waxay qasbayaan maamulada deegaanada ay ku sugan yihiin oo ay ku amrayaan in dadka shacabka ay isu soo bixiyaan iyadoo dadka shacabkana la qasbayo waxaase dusha ka riixaya saraakiil sare oo Itoobiya ka tirsan si kastaba kulanka xalay ka qabsoomay magaalada Muqdisho ayaa la isla afgartay in si toos ah looga shaqeeyo hirgelinta sidii ciidamo ka tirsan gorgor iyo danab loo geeyay lahaa deegaano ka tirsan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Boqol degmada Xudur si saldhigyada Itoobiya halkaas ay ku leeyihiin ciidamada dawladdu ay la wareegaan Itoobiya waxay ka careysan tahay soo gaarista gudaha Soomaaliya saraakiil masaariya iyo ciidamo loogu talagalay inay qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee ATMIS bedeli doona waxayse Itoobiya kol hore ay sheegtay in tallaabada Soomaaliya ay ugu ogolaatay Masar in saldhig military ay siiso ay tahay mid wiiqaysa amniga Itoobiya waxayse walaac hoogan dawladda Itoobiya ay ka qabtaa ciidamada Masar ee imaanaya gudaha Soomaaliya waxaase jirta in kol hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu si toos ah u sheegay in ay ka shaqeynayaan danaha sida uu qeexay dawlad kasta oo fulinaysa danaha Soomaaliya hase ahaatee dawlad kasta oo ka hor yimaada danaha qarannimada Soomaaliyana aysan danteeda fulinaynin waase tallaabo jawaab rasmi ah u ah dawladda Itoobiya oo imikan walaac hoogan arrintan ay ku abuurtay maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in Muqdisho laga daadgureeyo ciidamadan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka ee kulan ka yeeshay ayaa la sheegay in kulamo kale oo arrintan lagu ambaqaadaya ay isugu imaan doonaan saraakiisha qaybta lixdanaad ayaase amaro la dul dhigay oo ah in si toos ah isha ugu hayaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada Itoobiya qaybo ka mid ah deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaase xadka ay Itoobiya Soomaaliya kala wadaagto dhinaca maamulka koonfur galbeed lagu wadaa in ciidamo badan halkaas lagu daadgureeyo saacadaha soo aadan si toos ahna halka ay ugu hirgeliyaan inay ka hortagaan ciidamo Ethiopian oo la qorsheynayo gudaha Soomaaliya ay u soo tallaabaan waxaase arrintan ay ku soo beegmaysaa xilli xiisadda
labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya cirka isku sii shareerayso. Itoobiya sarajadeedii dhinaca biyaha Soomaaliya markan god dheer ayay ku sii dhacaysaa oo tallaabooyinka militariga iminkan la qaadayo ayaase khatar ku ah guud ahaan geeska Afrika oo laga digayo. waxaase Itoobiya kol hore looga digay dhaqdhaqaaqa damaceeda waalida ku salaysan. dunidase indhaha ayay ka eeganayaan xaaladdan, waxaase la ogeyn waxa ay ku dambeyn doonto Soomaaliya xilligan. waxay u diyaar garowday tallaabo kasta oo Itoobiya ay soo qaado mid la mid ah in Soomaaliya ay qaado. waase guul taariikhi u ah qarannimadeena. waase la og yahay taariikhdii lama iloobaanka ahayd Itoobiya aynu u dhignay dagaalkii 1977 oo ilaa imikan Itoobiya ay ka soo kabsan laadahay. wixii warar ay ku soo kordha arrintan isha ku hay page-kayga waad la socon doontaan. nabadgelyo.